أنا كهلا دور قضاء كسبسن نينكا أما حالة عبد الكريم حالة عبد الكريم لقاها هنيا هتمركوا بعد حي سويدين لعبد الكريم وعي وكما عبد الكريم وعند الدولة ديانك الصومالية تبي ولا شيء بوليس كجور ريديان كمدها كدي وحويان دبعتو السنية iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaatooyin iyo door kala galay oo ururka nabadiidka oo ka mid noqday dadkana dhibaateeyay gaar ahaan gobolka Doolo uu dhashay gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waxa weeyaan Lehelow Danood deegaanka Qoraxay Jarar iyo guud ahaan deegaanka dhanba dhibaatooyin badan nogob dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meel oo dhibaato ka geystay ma jirto arintiisi iyo waxa weeyaan maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay'adaha nabadgelyada iyo dawladda mas'uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya cid ay khusayso dastuurka Itoobiya nin hoos joogo weeyaan dawlad dastuur leh oo waxa weey taqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku raacay maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaanka intaba mid dawlad waxa weey taqaanaa ilaalinayso oo waxa weey maxaan ku raahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu Cabdikariin ma taqaanaa dastuurkaas hoos yaala iyadana u taalaa talaabooyinkii ma taqaanaa markaas waxa weeyaan dawladda ay ka qaadanayso dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arrinta Cabdikariin qalbi dhagax isagoo sheegay inay wataan dana qarsoon oo u socda meel kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiig miiratadii al-shabaab iyo ubo dadka hadda siyaabo kala gedsan bay uga hadlayaan dad fikirro khaldan bay ku hadlayaan oo tusaalaan Cabdikariin bay ka hadlayaan marka waxa isweydiinaya Cabdikariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan ku raacay weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ama Soomaaliya ha fadhiya dadka ka hadlayay horta waxa weeyaan Cabdikariin bay u daneynayaan baa taala saayif oo Cabdikariin way ka xun yihiin in wax la yeelo maya hirin agenda fara badan baa jira hirina agenda fara badan oo iskor saaran baa jira qaar waxay rabaan ma taqaanay kursiga ku doonayaan oo dawladda Soomaaliya ma taqaanay iyo waxa weeyaan nidaam wala isgaranaya wax iska cad weeyaan politics ka raxay halkaas inuu wal xoga soo dhaxbaxo ikiraadinayaan oo iska cadahay marka waxa weey taqaanay oohin bilaash ma taqaanay waxba ka jirin ma taqaanay oohinaya midna waa mid dawladda Soomaaliya iyo Amisom iyo Ethiopia iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee al-shabaab ku tirtireen waxa weey al-shabaab ku weeqantay ee hadda mas'uuliyiinteedii ugu sareysay isku soo dhiibayso waxa weey talaabada laga qaaday qorshe si al-shabaab loo soo celiyo al-shabaab baa loo ooyay Cabdikariin horta lama ooyay qaar badan al-shabaab bay ooyay qaar waxa weeyaan dawladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa la midkii hadda waxa weey mataqaanaa waxa weeyaan yaani maxaan ku raayay dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhuumanaya kuwa sama taqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood oo iyagu dad nooca u hadlaya weeyaan madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa Cabdikariin 77kii ayuu dhaawacmay ay uga haboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada al-shabaab Cabdikariin 77kii uu dhaawacmay 77kii uu dhaawacay ninka dhahaya waxa isweydiinay nin markaa muwaadin oo 77kii ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya hadduu taaleeyahay shalay ninka ma taqaanaa dhaawacmay ee al-shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga ciidanka qaranka ama hay'adaha kala gedisan ee dawladda Soomaaliya ee hadda al-shabaab ku dhaawacantay kaamu ka hadlo ma taqaanaa wax loo qabto kaamu ka hadlo dhibaatadiisa ma taqaanaa qoysaskiisa isagoo ay rafaadayaan kaasina uu ka hadlay shacabka al-shabaab ku dhintay Cabdikariin uu nool yahay kuwa dhintay maalin kasta qaraxa la daba taagan yahay maalin qudha isagoo laga mudaharaad lama arkin su'aashan doonayna inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciidan hadlaysiyo waxaysan waxa weeyaan war Cabdikariin marka uu mudaharaadaysa nin baa la dhiibay Cabdikariin waa hal shakhsi weeyaan waxa weeyaan dawladda Itoobiya oo waxa weey taqaanaa 2000 sano Itoobiya soo dastuur iyo sharci ka jira ayaa jira uu ka nasiib fiican yahay kuwii horaan leeyahay waxa weey taqaanaa si nabadgelyo ku jooga wax ku taqaanaa ku dhicina ma jirto sanamisanay dastuurkaas wuxuu siiyay bulay marka maxaa loo waayay dad al-shabaab dadkii la iska mudaharaaday basu'aal marka mudaharaaday oo taasoo isweydiinayna maxaa loo mudaharaaday weeyday in dawladdii Soomaaliya la yaqaanay waxa weey maxaan ku raayay waxa weeyaan horumar ka shaqeynaysa ee Soomaaliga keentay ee af Soomaaliga qortay
waxa weeye mataqaanaa yani soomaalinimada mataqaanaa ay abuurtay waxa weeye maxaan ku rahaa horumarka lagu yaqaanay dawladdii nooca ah baa naga luntay waan soo ceshanaynaa go-aana maxay u qaadan wayeen way tahay ugu mudaharadi wayeen inay maxaan ku rahay dawladnimo 30 dawladeed baa kor fadhiya oo waxa weeye mataqaanaa amisom la yidhaahdo yaa kor fadhiya taa marka intay ka ficil ka qaataan inay iyagu ismaamulaan oo dawlad mataqaanaa noqdaan oo waxa weeyaan madaxdooda ka dambeeyaan oo is ixtiraamaan madaxduna ay iyaga ixtiraamta la israaxta saasay ixtiraam ku leeyahay laakiin taana ima dhibayso oo adduunyada faraha badan ee kor fadhida Soomaaliya ninka Soomaaliga ee waxa mataqaanaa Soomaaliya u dhashay inuu waxa weeye maxaan ku rahaay taa inta ka ficiltabo uu dawlad waxa weeyaan isagu maamulo oo dawlad waxa weeye maxaan ku rahaa markaas iyadu kala dambeynaysa oo muwaadinimo ah inuu helo inuu u mudaharado waxa weeye maxaan ku rahay al-shabaab baa u diidanay al-shabaab iska dulqaado qabyaalad baa u diidanay qabyaalada iska dulqaado taas baa inuu ka mudaharado Cabdikariin ma ahayn mataqaanaa inuu ka mudaharado marka taa waxaan leeyahay dib iskugu noqdo waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay dadkii al-shabaabta leeynaysay Soomaaliya ku dhintay ardada hay qalin jabinay waxa weeye maxaan ku rahaa ardada iyagoo maanta soo qalin jabiyay oo jaamacadda ka soo qalin jabiyay